yeernay cabasho naga soo gaadhay bulshada oo maxaan ku raada ku saabsan laba qodob. qodobka koowaad maadaama tobankii dambe la bilaabay xalay tahajjudkii isla markaasina maxaan ku raadayay acmaasha iyo khayrku fara badan yihiin waxay bulshadu ka cabanaysaa in mikrofoonada dibadda culimada masaajidada dalacaya taasoo maxaan ku raadayay cabasho badan wasaaradda soo gaadhay ilaa xalay ilaa saakay maxaan ku raad dad badan wasaaradda inoogu imanayeen iyagoo runtii ka cabanaya mikrofoonka ama codbaahiyaha dibadda ee la dalacayo maxaan ku raadayay maadaama kaas ay jiraan dad badan oo xanuunsanaya dad badan oo maxaan ku raadayay dhibaataysan dad badan oo aan xamili karin dad musaafiriin ah dad aan u baahnayn maxaan ku raadayay in lagu dalaco taasoo markaa diintuna ama islaamku runtii uu reebay in khayrka iyo wanaagga dadka lagu dhibaateeyo marka waxaanu leenahay arintaasi aan culimada baaq u direynaa in mikrofoonada dibadda la gaabiyo isla markaasina kuwa codbaahiyaha dibadda laba baqtiyo ama la gaabiyo taasoo runtii aan is leenahay waxay waxbada ka tari doontaa cabashadii bulshada maxaan ku raadayay soo jeediyeen waana ogtihiinoo in khayrka dadka lagu dhibaateeyo ma aha waxaan runtii halkan baaq adag ugu direynaa imaamiyada masaajidada muadiniinta iyo guud ahaan culimadaba in arintaasi ka waantoobaan in badan baa runtii aanu ka hadalnay ramadaantii kowdeedii halkan markaan wadaadada isugu yeernay culimadii maxaan ku raadayay imaamiyada qodobadii aanu kala hadalnay baa runtii ay ka mid ahaayeen in marka salaatuleelka la gaaro codbaahiyahaasi aan maxaan ku raadayay la isticmaalin marka waxaanu leenahay arintaasi ha laga waantoobo ilaahay laga baqo oo yaan lagu dhibaataynin wanaagga iyo cibaadada yaan dadka lagu dhibaataynin dadka waxay weey jilicsan dad dhibaataysan baa runtii ku jira intaas halkan ugu gudbo waxa ayna jirta runtii cabasho ka imanaysa xagga salaada cishe ee bisha Ramadaan waxaan la soconaa waxaanu qaybinay guud ahaan jadwal qeexaya salaad kasta xilliga la gelayo timekeeda waxa runtii la yaab leh imika salaada cishe cabasho badan baa runtii ka taagan waxa la eedaamayaa oo waqtiga eedaanka uu ku beegan yahay 7 iyo 12 daqiiqo Ramadaan awalkeedii waxa uu ku soo bilaabmay 7 iyo 26 in waqtiga salaada la adimayo ee cishaay maalinta soo bedelaysa hadda caaw waxa la adimi doonaa 7 iyo 12 daqiiqo waxa marka la yaab leh in maxaan ku raadayay wadaadadii ay salaadii maxaan ku raadayay cisha eedaamayaan 7 iyo 12 daqiiqo ama 15 daqiiqo 20 ay ku galayaan islaamkuna wad ogtihiinoo salaada waqtigeeda hadaan la gaarin in la tukadana deedinka wanaga aqoon badan wadaado marka ilaahay ka yaaba oo ummadda waqtigeeda u ilaaliya oo salaada maxaan ku raadayay waqtigeeda hal ilaaliyo salaad aan waqtigeeda la tukaninna inay baadil tahay idin wad ogtihiin iyadoo loo cararayo taraawiix oo sunna loo cararayo in waajibkii maxaan ku raadayay ilaahay nagu waajib yeelay maxaan ku raadayay lagu ciyaaro ma aha marka halkan waqtiis adag baan uga hadlaynaa wasaarad ahaan in salaada cishe waqtigeeda lagu tukado oo lagu eedaamo salaada cishaayna waxaan mar labadan ku celiyay la eedaamaya 7 iyo 12 daqiiqo marka aad adinto xilliga doontid gal laakiin waqtiga salaada ay galayso 7 iyo maxaan ku raadayay 12 daqiiqo caaw waqtiga isbedel doona eega marka maxaan ku raadayay jadwalka waxaan runtii sidoo kale baaq u direena guud ahaan bulshada maadaama aynu dad muslimiin ah hadii xitaa wadaadku qaldamo waxa laga doonayaa jamaca masaajidka jooga ee ummadda in waqtigooda ilaashadaan oo salaada ilaashadaan ay xariista culimooy iimaanada muwaadimiinto walaalu naxariista dadkiina dad badan xalayto waxa jiray masaajidda qaar oo intaana iyagu salaadiiba galin mikrofoon kowdiisii saaray kowdii bay saareen qofkii kowdii mikrofoonku dhagihiisa ku dhacay oo intanoo masaajidoo qaylinaysa iyagoo wali wado salaadii lagu jira ayaa aadaankiina socday bal dhibaatada halka taagan qofkii waxa laga yaabaa xitaa balkii caafimaad qabay shaqo tagayay goor muu seexanaya markaa haddana suxurtay yaa toosinayay in habeenkii suurdalaan buu ku dhamaaday walaalayaal ilaaliyo sida wasaaraddu ay idinka codsanayso la ilaaliya salaadan cishaayiga qudheeda uu ka hadlay agaasimuhu waa sida uu idin sheegay